السلام عليكم. waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo faa'iidada ay leedahay akhrinta. Akhrinta nooc kasta ha noqoto markaan ka reebno akhrinta fariimaha gaagaaban ay nala wadaagaan asxaabteena iyo boostiyada iska maada ah, sawirada la igraadista oo lagu soo boosto gareeyo Facebook iyo Twitter-ka. Run ahaantii anigu maan jeclayn wax akhrinta, laakiin muddo yar kadib waxaan ogaaday inay wax akhrintu faa'iido badan leedahay. waxa iska bedelay waalkayga, macnaheedu waxaan ogaaday waxyaabo fara badan iga qarsoona, erayo badan oo igu cusub. buugaagta iyo kitaabadu waa qasnada kaliya ay ku qarsoon yihiin cilmi fara badan aanan garanayn. waxaa jirta akhrin ay tahay waajib oo Quraanka Kariimka isna uu kaaga filan yahay boqolaal buug, sababtoo ah in waa qowlka Eebbe subxaanahu wa ta'aala. isku day inaad jilmigaaga maalinle ka dhigato Quraanka juz xisbi 3 juz qalbi inta awoodo. waxa uu qayb weyn ka qaadanayaa maskaxda iyo qalbiga bani'aadamka, waxaana joogteynaysaa farxad iyo walwal la'aan insha Allah.